السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا كيستا تي في برنامج كله ما أنت وحن دب أمي لحسنينا أخبار جوس أو كوساب صندرة والله تراجع حلي أدوات أكتهين إن لوجيرو وقت أذك وركن أيان وجهر مرينا يا ستيت كيوتا أما قبل كيوتا أو أمر دول دقي درا والله سوق ليا ستيت كودا إنه وذا بوحيان ورقد عدين إن هذا قبين كوفيد 19 declaration form بعد بوحينيسا كوسي تلقل إناد لكل مكرتيد لايمان دادير حدودودا markaad ka talaabaysid isteediya kale oo soo rogay waa ay jiraan sida Florida laakiin darawallada taraaga kuma jiraan dadka buuxinaya foomamkan akhbaarta labaad ayaa ah in isteediyo badan oo ay ugu dambeeyeen stateska Missouri iyo Georgia ay ogolaadeen in darawallada ay seexan karaan way stationada halka markii hore aan la ogoleen xiriirka lala sameeyay goboladan ayay ku sheegeen inay ku eg tahay xilliga emergency-ga oo kaliya oo uu jiro COVID-19 ama coronavirus timekiisa dhanka kale gobolka North Carolina ayaa isna bilaabay baaritaan uu ku sameynayo towing companies lagu soo eedeeyay in ay si qalad ah u bartilmaameedsadaan darawallada taraagleyda iyaga oo ka xirta lugta ama toogareeya halka lacagta ugu yar oo ay ku soo daayaan gawaarida ay noqotay $3,000 lacagtii ugu badnaydna ay noqotay $5,000 darawal dhigtay Home Depot oo biyo u waday xilligii ay ugu xumayd xeer ilaaliyaha ama Attorney Generalka gobolka ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in uu tallaabo ka qaadayo dadka uu ku eedeeyay in ay sameeyaan ka faa'iideysi marxaladeed ama price gouging waxay Mareykanka yiraahdaan ugu dambeynna dowladda federaalka ah ayaa ka codsatay gobolada in ay u ogolaadaan food truckska in ay rest areaooyinka ugu geyn karaan cunno darawallada taraaga arrinkan oo ka careysiiyay truck stops badan iyagoo ku andacoonaya in ganacsigoodii uu ku imaanayo hoos u dhac weyn ayaa lagu wadaa inuu hirgalo maadaama ma tahay darawal truck fadlan wixii akhbaar ah aad haysid nagula wadaag comment section ka hoose. Don't forget to like the video, share, and adiga oo mahadsan subscribe to the channel. Mahadsanid.